waxaan bilaabaynaa casharkii labaad. Waxaan rabnaa inaan sameeyo marka ugu horeysa grid line, oo hadda wax grid line ma lahan. Inaan xariiqad grid line sameeyo. Ani marka normally waxaan sameeyaa, waxaan tagaa Google-ka, waxaan soo furtaa Google-ka, waxaan ku qortaa matplotlib, kadibna waxaan qorataa grid lines. Marka labo website-ka ugu horeeya waa kan matplotlib library-gu leeyahay. Kan labaadna waa Stack Overflow. Hore aan kugu sheegay Stack Overflow aad ayaan u isticmaalaa, waxaana idinkula talinayaa inaad isticmaashaan idinkana. Marka matplotlib baa hadda ku dhuftaa. Marka halkan kusoo dhuftay exampleska hoose baa aad idin tusaya, waa ku dhufanaysa kana ku dhuftaa. Tusaale ahaan waxaan ka raadinayaa meel ay grid ku taalo. Hadda u jeeda halkan blt.grid true. marka sidaan kala sameynaya ku noqono casharkeennii. waxaan leeyahay blt ma isticmaalaya, waxaan isticmaalaya x oo access aan usoo gaabsaday. kadibna waxaan leeyahay grade, kadibna waxay dhaheen true qor. saan ku aragnay website-kooda, boom, waa ujeedaan hadda gridkii saas uu inoogu soo baxay. Okay, marka haddana waxaan kala sameynayaa, sida arkaysaan graafkan aad ayuu u kala duwan yahay, oo scale-ka lacagta shilinka Soomaaliga ay korortay kan Kenya waxay ka badan tahay 200 jeer. marka iskuma soo baxayaan. hadda line-kan oo redka ah oo aan ku talagalay inay Kenya noqoto si fiican ma aragtaan. marka inaan scale u sameeyo haddaa rabtaan, sidoo kale taan ku noqonaynaa Google-kan tagaynaa, haddana scale. marka halkan waxaa arkaysaan linear logarithm scale, bal kan aan tijaabiyo oo log ah soo noqdo logarithm. intaan waxaa kaloo dhihi inaad set sameyno, maadaama aan isticmaalayno ax, waxaa naga rabaa inaan sameyno waxa la yiraahdo set y scale aan ku qorno. logarithmkana waa logii aad taqaaneen oo xisaabta, oo 10 power 1 log 10 power 2. hadda waxaa moodaa inuu ka fiican yahay graafkii hore oo scale kuu sameeyey. hadda halkan Google waxaan ku qoray matplotlib anatomy of figure. sawirkan intusay kadibna markaasaan sharxaya graafkii kuu sharxayaan. oo hadda mararka qaarkood waxaas leedahay sidee ku fahmaysaa in kan title la dhaho oo aan la oran heading oo kaleeto, ama kan legend la dhaho, ama kan grid la dhaho kaleeto. marka picture-kan waa mid muhiima. kuwan ay u yaqaanaan labadan line spines oo kaleeto. line-kaas line baa la dhahaa, ama line plot. nambaradan waxay u yaqaanaan tick. marka waxaan raadinayna waxay ahaayeen tick label-kan oo kaleeto. marka waxaan ku qorayaa kan halkaa ii yaala. haddana Google-kan soo furanayaa, waxaan leeyahay mat tick labels baan qorayaa. tusaale ahaan hadda kan igu horeeyo kusoo dhufto, haddaan ku dhufto example, marwalba example-kan fiiriya, bal example-kan aan fiirino. okay, hadda labadan line fiirisid x tick, hadda labadan line eeg soo qaadana, hadda x ticks baan soo qaadanaynaa. hadda bal aan qorno noo shaqeey, waa aragteen. marka meeshan x ka dhigi lahaa y dheh. tusaale ahaan laba xariiqood buu noo sameeyo grid line oo midna yahay 20, midna 10 yahay, midna 20 ama 10 ama 20. aan logarithmkan awal meesha yaala tirtiro oo soo dhigo waxa la yiraahdo nambaradeedan ay ii noqdaan labelka. marka ba arkaysaa marka hore aragno. okay, marka waxaan sameynay x access keeni, y access keeni ayaan label u sameynay. halkan waxaad dooda ku bixin kartaa haddaad dhaho tusaale ahaan f, magacaas uu iigu bixinayaa l oo kaleeto. f iyo l waa ujeedaan. marka inay waxaa rabaa grid lineskan inay nambaro iigu taagnaayeen. nambaradii value qiimuhu shilinka Soomaaliga marayay bay igu taagnaayeen. inaan qiimihii geliyo lama 5 ka bilow 7. marka hore tartiib ayuu qiimuhu u kacayay 10, 50, 100, kadibna 500. marka laymanka gridka wuu noo dhisay. hadda kan 5 buu ka bilowmaa 10 saa arkaysaan. marka aan intii oo kale soo qorno, ujeeda 5 shilling. marka hadda xoogaa uu ka fiican yahay graafkeeni hore. intaanan matplotlib waxay default ku tahay blue iyo red. haddaan rabno inaan iska bedelno redka, haddaan color baa halkan dhahayaa, sidaan tan usoo aragteen oo kaleeto. waxaan leenahay yellow ka dhig, yellow ka dhiga, laakiin iskuma soo baxayo ujeedaan.
xariiqan Kenya inaan ka dhigo inuu yar yahay moodaa inaan ka dhigo xoogaa thick bold iyo kaleta. sidoo kale waxaan leeyahay Google aan ku qorayaa line thickness na fiiri wax soo baxa matplotlib-kan ma qoray website-kiisa aadaya. Okay, hadda waa kan uu tusay line width macnaha balaarkiisa. waxaan baranaynaa line width iyo marker wax la dhaho. aan haye qorno tusaale ahaan marker matplotlib markers hadaa ku qortaan Google-ka wuxuu idin saarayaa reference kasoo qaadanaya matplotlib.org saddexda daanta ku dhufto. waxaan raadinaya waxaa weeye markers. Okay, marka markerka oga ka dhig waan leeyahay ama dash ama hadda arkaysaan saa waxaa ka wada spelling waa dib badan yahay iska ilaaliya. waxaa ka bedelaya un waa linekii Kenya waxaa ka dhigay oo ka dhig baan ku yidhi. haddana waxaa kaloo ii samaysaa ku yidhi dashna ii geli maadaama aan line haysan. haddaan rabno markerskan oo ka tegaynaa online style keliya dash keliya ii yahay marka laakiin weli uu yar yahay inaa weydin star rabaa line width mar walba aan wax iga fahmi waayo ama iga xumaada waxaa kusoo noqdaa ama Google ka gelinaysaa ama matplotlib website-kooda aadaysaa ama Stack Overflow midkood. waxaa qalday waxay ahaayeen spelling mar walba wuu idinka diidayaa spelling si fiican isaga saxa. marka hadda 2 baa ka dhiga hadda dhaho 5 ka dhigo halkaysaan xariiqii waa weynaaday. okay, marka haddaan rabo inaan ka dhigo tusaale ahaan bluegan Soomaaliya inaan xoogaa khafiifiyo dhinaca Soomaaliya kale xaggaan tegaya waxaan leeyahay alpha hadda ujeedaan xoogaa uu ka khafiifsan yahay tii horeeto. hal waxa kaleeto aan kusii dari lahaa waxa weeye haddii aad rabtaan inaad kalarka kale hadda kana kaleeto kalarkiisa wax ka bedeshaan oo kaleeto color baa dhahaysaa. waxaan dhahayaa tusaale ahaan red buu ku noqday. haddaa size rabtaan in wax ka bedeshaan sidoo kaleeto Google-ka gelinaysaan waxaa leedahay matplotlib ama Stack Overflow midkaa ku aragtaan. marka waxaan ku qorayaa title font size oo tusaale ahaan hadda Stack Overflow baa ii soo horbaxday ku dhufto dhib ma lahan font size. okay, font size-kan waan qaadanaynaa title-kan tegaynaa title okay, font size-kina waa weyneynay hadda waa aragtaan title-kii. intaan cashar marka soo gabagabeyn waxaan rabaa inaan ku daro kaleeto background-kan sida looga dhigo loo bedelo. sidoo kaleetaan Google garaynayaa marka Stack Overflow haddana ii soo baxay. waxaan rabaa sida inay background-kan uu saan oo kaleeto ay ii noqoto kalarkaa rabo. okay, marka wuxuu isticmaalayaa ninkan function-kan aan qaadano tusaalaan soo koobiya. hadda intaan enter ku dhaho oo ujeeda kalarkiisa kala qaadanayna. kalaradu number bay leeyihiin marka waa bedeli kartaa waxaa rabtaan ka dhigan kartaan. hadda haddaa rabti kalarkaygan inaan gray ka dhigto kaleeto Google haddana soo furanaya waxaan ku qorayaa tusaale ahaan light gray RGB oo number. marka hadda kanaka ii soo baxay waan soo koobiyey. ka teganina haddaad soo qaadanaysaan semicolonkaas kalarka background-kana saan ayaa loo bedelaa. marka cashirkeenan intaan ayaa kusoo gabagabeynayna. la socda casharada kaleeto waa mahadsantihiin. please subscribe na siiya like na saara. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.